wasiirka wasaaradda deegaanka jamhuuriyadda Somaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa socdaal shaqo ku timi xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba. Socdaalka wasiirka ujeedadiisu ahayd kurigelida xaaladaha kala duwan ee dhinaca deegaanka ee gobolka Saraar ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay kusimaha barsaabka gobolka Ibraahim Jaamac Maxamed, maayirka magaalada Caynaba, isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Maxamed Jaamac Ciise iyo xubno mas'uuliyiin oo kale. iyadoo wasiirka wasaaradda deegaanka Somaliland Mudane Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare markii ay soo gaadhay gudaha magaalada Caynaba hoteelka caalamiga ah ee Caynaba ay kulan kula yeelatay mas'uuliyiinta maamulka gobolka, kuwa degmada iyo mas'uuliyiinta wasaaraddaasi heer gobol, waxaana ka xog warameen ujeedada kormeerka wasiirka ee gobolka Saraar, iyagoo mas'uuliyiintana si weyn uga hadlay sida ay ugu soo dhaweynayaan wasiiradda xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba. gobolada bari xaaladahoodu halkay horumar ka lahayn gurmad baa loogu yimaado, halka gurmadka aanu doonayno in la yimaado in la baabiyo sareeyaasha gaarka loo leeyahay kuwii dawladda wax laga qabto sharciga ahayn. haddii gobolka inta loo qabto wasaaradda deegaanka gobolkaana u jooga maamulka degmada iyo gobolka iyo shacabka iyo culimadiinta ganacsatada aad baan uga shaqeynaa. waxaanu kaaga mahad celinaynaa ajiibkana soo ajiibtay maanta haddaad noo timi walxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan doonaynaa arrinka inaad si degdeg ah wax noogala qabataan oo qeyladaanta ilaa madaxweynaha naga gaarsiisaan waanay ahayn mid yar. waxaanu ka cabanayno ahaa seerayaasha iyo dhuxusha sidaa lagu sheegay. aaggan waxaa haysta cayn, waxaa haysta ood. gobolkan Saraar waa gobol aad iyo aad u baaxad weyn, masaafadiisa aad u dheer tahay. dhibaatada ugu badan ee nabadgelyada darrada keenaysa waxaa ka mid ah seerayaasha faraha badan ee la oodanayo ee 20 kiiloomitir uu iska oodanayo iyo wax la ka manaafacaadsanay iyo dhuxushaasi la shidaayo muxuu ahaa koox loo socdo. haddii Saraar galoo la awal bahraad loogu baqtay jiray ku surmaday Saraar godan loo dhintay, haddii intaa gobolka laga dhameeyo leelita la harsan jiray haddad ma jiro waxba harayaaba ma jiraan oo dhamaan. haddii intaa gobolka la dhamaadaan xaaladdu waa asaas. marka wasiir horta dhibta halkan taala mid aad adigu wax ka qaban karayso iminka degdeg oo ilbirse ku dhameyn karayso ma, laakiin waa mid ilaa la doonayo ilaa madaxweyne la gaarsiiyo. halka waa igu timaadeen xafiiskii, waxaan idinku ballan qaaday iyo markii aan idin yiri shaqaalaha forestry guardska waxaan ku daraynaa miisaaniyadda shaqaalaha forestry guardskana qaybtiina haddii ayaad heli doontaa. qayladu ilaa maalintiiba way taagan, Saraar way ka taagan. Saraar oo kaliya maaha waddankooda qayl way ka taagan. qaylada ka taagan waxa weeyaan dhulka la iska xidhay ee had iyo jeer faraha la isku saarayo, la isku jiray, dhimashadu ka dhacayso. inuu hadda labadiisu keen gelimayno Somaliland inay isku helimayso hawlana waanu dhaqanaynaa dhinacii kalena waanu ka iyo nabad guur ayaanu maaragtay ayaanu number 1 ka u noqonaynaa. ugu dambeyntii waxay wasiirka wasaaradda deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer deegaan ay kormeer indhaindhayna ku soo mareen dooxa daaqsimeedka Jaleelo, iyagoo si weyn dadweynaha ku dhaqan gobolkan ugula dardaarmay inay ka digtoonaadaan dabargoynta dhirta qoyan. Jaamac Boodacde, TV qaranka Somaliland, Caynaba.